asalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah waa idin salaamayaa meel walbo aad dunida dacaladiisa ka joogtaan ciid mubaarag waxaan noo wadaa maanta macmacaan ka kooban 3 shay keegaas oo very softiga ah oo ah mango cake iyo cun iyo banana cake insha allah saan u sameeyo la socod wanaagsan waxaan ku bilaabayaa insha allah iyo cunka waxaan inta ku shubanayaa 2 koob oo bur ah 2 koob oo burka caadiga ah all purpose waxaan ku darayaa koob sokor budo ah waata sokortaas waaye sokorta shiidan oo budada ah 4 shay unbuu ka kooban yahay waa 2 koob oo bur ah sokortaas budada ah waxaan raacinayaa insha allah saliid oo 1 koob ah isla koobkaasaan ku qiyaasan doonaa insha allah koob saliid caadiga ah canola oil hal koob marka gacantan soo dhaqan doonaa marka waxaa kaloo raaci rabaa ka anfaraad waxaa waaye 4 shay uu ka kooban yahay cunka waxaa waaye caraf wax yaro caraf ah insha allah waxaan jeclahay aniga vanilla extract maanta ma haysto waxaan isticmaali doonaa heel budo ah heelkaas waaye cardamom oo budo ah qaado dhan ma ahan qaadada waa ku qiyaasanaa laakiin ma buuxinin carafan ka rabaa insha allah haddii aad haysato vanilla extract maasha allah cunka vanilla extract caraf maasha allah ay u yeeshaa vanillada sababaatana gacmaha soo dhaqday waa la galay insha allah intaas si fiican isku qasayaa asxaabe burka 2 koob kuma ekeen doono markaan intaan si fiican is dhex geliyo haddii aan jileec ka dareemo waxaan rabaa inaan ku daro half bur ah markaas waa 2 koob iyo bar oo bur ah waa wax saaid u fudud waqti badan ka qaadaneynin maasha allah waqti badan ma qaadanayo waa kaasa burka halfka ayaan ku darayaa si fiican aan soo dhex gelinayaa waa 2 koob iyo bar bur ah koob sokorta budada ah tan budada hadaad haysanin xitaa waxaa ku samaysan kartaa mid caadiga oo shiiday waa kaasa waxaan soo qaadanayaa asaga waa diyaar waa saasaan ku qasay saliid gacanta inaa marsato because gacanta ku soo bin rabaa sama insha allah gacanta saliid marsaday ko yara soo goosanaya iska qiyaasa go'a saasaa ka dhigaysaa insha allah
saxanka marka aan saarayo bor iyo waxaan soo mariyay saliid. Taas asxaabta saasaan kusoo wadi doonaa. Meeshaas waxaan ku haystaa biyo yar. Waxaan ku dari doonaa food color oo orange ah. Food color istikiinkaasaan isticmaali rabaa. Hadduu i anfici waayana fartaygaan isticmaala insha Allah. waa dhibacdiisa yar marka waxaan isticmaalayaa booskii istikiinkaas insha Allah. midka weyn oo isticmaali jiray ma haysto uu dhamaaday, soo kan fartaygaan isticmaalayaa insha Allah. cunka waa maasha Allah. wax very soft waaye. afartaas shayna ka suubinaysaa, hore ka sameynaysaa. waqti badanna ma qaato asxaabe. marka ovenka ha u geenin high. 180 ku korayaa. marka 180 hadaa ka badiso in gubtaa laga yaabaa. so waana gubanaa because cunka kuma kara dibka high-ga ah. hoos uu ka gubanaa, korna uu ka cadaanaa. marka 180 maasha Allah 180 u geyso. ovenka hadda 180 u yahaani waana kuleel. saan diyaar u yahay waa gelinayaa insha Allah. markaas asxaabta ovenkan gelinayaa, wax yaraan sugayaa insha Allah. waa kan ayaa cunkii diyaar waaye. markaasaa golden u noqday maasha Allah. iyo cun iyo calaanja caloosha igee waaye maasha Allah. waa kaasaasan kusoo dhameeyay cunkii. marka waxaan sameynayaa banana cake insha Allah. mooska markuu xoogaa soo madoowaada ha tuurin. cabitaan ama saan banana bread ama banana cake-gaana laga suubsan karaa, ama banana muffin insha Allah. ani maanta banana cake-gan ka suubinaya. marka waa kaasaa waxaa meeshas i yeelay heelkaas baking powder iyo 3 xabo mooskaas ah. waa kana asxaabta mooskii waxaan ku daray caano yar. waxaan kusoo shiiday mashiintaas. isaga saasuu diyaar igu yahay. marka inta kale isku darsanayaa. inta waxaa ku haystaa 2 xabo ukun ah. waxaan ku darayaa sokor koob ah, adi half koob 80 ml sorry koob half koob waaye. marka qaado heela ku darsanayaa. maasha Allah intaasaa marka hore soo garaacayaa. waxaan ku darayaa baking powder 1 qaado ah. waa kana intaasaan isku soo garaacayaa insha Allah si fiican. sokorta inay baaba'daan rabaa. ukunta iyo sokorta isqaataan ingredientskii kale aan ku daray. so waxaan ku darayaa marka insha Allah mooskii diyaarkii ahaa ee gooniga aan soo shiiday. wax yaroo caanaan ku shiiday. waa kaasaa saas ku uguma harayo. marka waxaan bahashaan rabaa inaan ku sii
yaa waa kaasaa waa kusii si fiican inuu isdhexgalo. Waa asxaabta raali ahaada markaan wax sameynayo hadalkayga iska yar inaa aamusaa laga yaabaa. soo la socod wanaagsan. koobkii burkan ku dara hadda. waa kaasaa codkeedana waa idinka xiray, waa qaylada saa'ida maasha allah. marka waxaa meeshan soo marsaday dhaladii yaran ku shubi lahaa bur saliidan ku daraya canola oil si dhalada ugu dhagin. waa buri saliid waan si fiican u marinaya insha allah. asaga burkii diyaaran ku shubaa saasoo diyaar ku yahay. ofinka tan waxaa u geeri waa 350 ilaa ay ka carafto. na waa sugaa waqti idin siinaa ana waan fiiriyaa hadee bii karta bahasha istakiinka gelinaysaa hadduu kara iyo hadduu karin baa soo sheega. hadee weli qoyinta istakiinta ma karin soo waa sugaysaa ilaa istakiinta soo qalalan ay kasoo baxayso. maasha allah asaga waa kaasa ofinkan 350 u geynaya. waa sugayna insha allah intuu ileeyahay waa kara i bixi. waa diyaar. waa kana waa soo bixiyay maasha allah. marka inta waxaan ku haystaa kala banana mango. waan rabaa inaan suubiyo 8 xabo ukuna, 1 cambo oo soo jarjaray maasha allah. iyo waxaan haystaa cambaha waa diyaar waan soo jarjaray. heelan xag ku haystaa sokor koob waxaan ku daray ukuntii, heelan ku daray baking powder. intaas marka hore isku garaacaya insha allah si fiican. intaas marka hore si fiican u garaacaya. waa 3 shay ku sameyn karta wax 1 hour hadee wax raacay 10 minutes maasha allah. waxaan kasoo tuurtay 3 shay oo kala nooca 3 macmacaan maasha allah. maasha allah asxaabta qaaliga la joogeena waa ku faraxsanahay. waa ii dhiirigelin marwalba ii soo dhawaada. kuweena cusub welcome. gacmo furan weji farxad leh. weli wejigay ma arkin laakiin waa idin tusaana insha allah. kaamirada gadaasheeda kasoo qayliya waad arki doontaan insha allah. mar walba waa ku mahadsantiin dhiirigelinta weyn la socodkiina. macmacaankan sida fudud loo sameeyna saxaabtiina kale la sii share gareeya insha allah. usii share gareeya insha allah. asxaabe mango cake markuu saas nooga soo kaco waxaan ku darayaa insha allah burka waa 1 koob. si fiican u soo kacay marka burka waa 1 koob. 1 koob oo buraan ku darayaa burka caadiga. si fiican isku walaaqaya hadana. si fiican markaan iskugu walaaqo insha allah oo saa diyaar ugu soo dhigo waxaan ku darayaa insha allah cambihi. cambaha waad soo shiidi kartaa
saasaa ugu dari kartaa. Ani marka waan soo jarjaray, soo shiidana waa lagu samaystaa. Ani laakiin waan soo jarjaray. qaadaan raadsanayaa. Cambaha rabaa inaan ku daro. inta cambaha ku darina walaaqaya maasha Allah. burkii ingredientskii kala diyaar saas markay u noqdaan, cambihii diyaarsanayaan ku darayaa. shuk waa kaasa maasha Allah. waa diyaar. birtiya marka saliid iyo bur soo marsanaya insha Allah. birtiyan soo qabsanaya. waatana birta buraan ku dhex shubay, saliidaan ku shubayaa say ugu dhagin. laablaabka saliid inaad gelis hadaa ka ilowdo meeshuu koolo ku noqonaya. marka waa hubsanaya inay saliid taabata luuq kasta. birtii diyaarana tahay waxaan ku shubayaa marka burkii ii diyaarsana. maasha Allah. qaado u isticmaal ama isbaajala, labadooda midka haysato. waa kana 350 u geynaa asxaabta qaaliga. waa sugeynaa intuu iga bixi leeyahay maasha Allah. soo carfaya markaas ayaan kasoo bixin doonaa. waa kana diyaar 3 shay. iyo banana cake iyo mango cake. camba cake laga suubiyey maasha Allah. soft dhexda waa taasa. so very soft waaye. ay asxaabta qaaliga usii share gareeya asxaabtiina kale. waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum.